saaka markii aan isku dayay inaan imaado kulanka albaabadu u xiran yahay ee shir madaxeedka ciidamada ammaanka ee Itoobiya ayaa ishor istaagay halkii aan mari lahaa. waxa ay ii diideen in aan hoteelka ka soo baxo oo aan gaadiidkayga ku aado halka uu shirka ka dhacayay. waqti dheer ayay igu qaadatay in aan halkaas joogo. ugu dambeyntii waxa aan ku imid gaadiidka madaxweyne kale. mar kale markii aan nimid xarunta midowga Afrika annaga oo laba madaxweyne ah, madaxweynaha Jabuuti iyo aniga ayaa mar kalena laga hor istaagay in aan galno xarunta midowga Afrika. askar qoryo wadata ayaa horteenna istaagtay. waxa ayna inoo diideen in aan hoolka gudaha u galno. dhaqankaas ayaa ahaa kii aan ka aragnay. keligayna ma ahayn ee madax kale oo sidaas oo kale loo galay ayaa halkan joogay.